Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cali Caamir Xasan. Daawadayaal dhegeystayaal, waxaan jeclahay inaan idinla wadaago cashar ka mid ah casharada aan kugu talagalay, kaasoo noqon doona topigiisa typhoid. Okay, haddaan guda galo, maxaa loo yaqaanaa typhoid? Cudurka loo yaqaano typhoid waa infection kaasoo ay sababto bacteria loo yaqaano Salmonella typhi. Bacteriadan waxay ku nooshahay qulqulka dhiigga ee bini'aadamka, waxayna ku faaftaa dadka dhexdooda si direct ah, haddii qofba qofka kale uu si direct ah xiriir ula yeesho. Tusaale ahaan, aniga adiga haddii mar walba xiriir fiican naga dhexeeyo ama ahaan contact aan sameynayno kale, waa laga yaabaa typhoidka ama cudurka aan sida inaan kugu daarto oo aad halkaas ka qaado. Sidaa darteed, bacteriada keento cudurka typhoid waxaa loo yaqaanaa Salmonella typhi. Direct iyo indirect wuu ku kala gudbaa markii dadka dhexdooda xiriir ay sameeyaan. Calaamadaha lagu garto cudurka typhoidka. Astaamaha ama calaamadaha lagu garto ayaa caadiyanba bilaabmo 6 ilaa 30 maalmood kadib soo gelista bakteeriyada jirka. Labada calaamadood ee ugu waaweyn ee lagu garto cudurka typhoidka loo yaqaano waxa weeyaan qandho iyo rash ama finanka. Xumada oo loo yaqaano typhoid fever waa midda ugu sarreysa ee si tartiib ah u kordhaysa dhowrkii maalmood ilaa 104 degree Fahrenheit. Markii digriiga uu marayo 104 degree Fahrenheit, xumada feverka aad bay u kordhaysaa, ama ilaa 39 ilaa 40 degree centigrade. Rash ama furuurac oo aan saameyn ku yeelan bukaan kasta waxa uu ka kooban yahay dhibco midab leh rashkaas, gaar ahaan wuxuuna qofka ka soo baxaa qoorta iyo caloosha. Qofka typhoidka qabo waxaa lagu arkayaa badanaa rash ama furuurac, kuwaasoo badanaa ka soo baxo qoorta iyo caloosha. Calaamadaha kale waxaa ka mid ah lagu garan karo qofka typhoidka qaba ama qofka markuu bacteria typhoidka wada jirkiisa soo gasho, wuxuu dareemayaa waxa la yiraahdo daciifnimo, calool xanuun iyo calool istaag, iyo sidoo kale madax xanuun ama waxa loo yaqaano constipation iyo headache. Sababaha lagu garto cudurkan typhoidka waxa weeyaan cudurka typhoidka loo yaqaano waxaa sababa bacteria la yiraahdo Salmonella typhi, sida hore usoo sheegnay, waxayna ku faaftaa ama waxa cudurkan sababta uu ku gudbo cudurka waxa weeyaan inay bacteriadan ku faafto cunnada, cabitaanada iyo biyaha la cabo oo ay ku wasakhaysan yihiin walxaha bacteria sido ama waxyaabaha cudurkan sido. Cuntadii iyo cabitaanadii ay ku wasakhoobeen, qofka markaas wuu usoo gudbi kartaa bacteriadii, saasuu ku qaadi karaa cudurka. Dhaqitaanka miraha iyo khudaarta way ku faafi karaa, ama dariiq kale oo ku faafi weeyaan cudurkan. Haddii biyo wasakhaysan la isticmaalo sidoo kale iyadana uu ku faafi karaa cudurkan. Treatmentska ama dawooyinka loo qaato cudurkan waa intaan dawooyinka sheegin horto. Daaweynta kaliya waxtar kale loo yaqaano cudurkan typhoid loo yaqaano waxa loo isticmaalo kaliya wax kale ma waa antibiotic. Daawada waxtar kale wax ka tiri karta kaliya waa antibiotic. Kuwa ugu caansan antibioticada la adeegsado waxa weeyaan ciprofloxacin oo loogu talagalay dadka waaweyn, khaasatan kuwa aan dumarka uurka lahayn way isticmaali karaan ciprofloxacin markay typhoid qabaan, iyo ceftriaxone dawada la yiraahdo oo aad u taqaanaan. Labadaas dawo ugu caansan loo isticmaalaa typhoidka. Waa labada antibiotic ee ugu muhiimsan loo isticmaalo. Kasiko antibiotic-yada waxaa muhiim ah in fuuq celinta lagu cabo biyo ku filan. Qofka in markii la siinayo antibiotic-yada kasiko waa inuu helaa wax la yiraahdo fuuq celin oo biyo ku filan qofkii oo qaata. Xaaladaha aad ku garan karto iyo waxyaabaha qofkan cudurkan markii uu ku dhaco keenayaan waxyaabaha kamid ah antibiotic-kii hore uusan ka qaadan, kadibna waxaa ku dhacaysa wax la yiraahdo diarrhea oo ah shuban, kadibna qofkii wuu fuuq baxayaa. Sidoo kale sometimes markii xaalad serious ay gaarto, qofka waxaa laga yaabaa inuu u baahdo markii ay xaaladiisu halis tahay surgery inuu u baahdana waa dhici kartaa. Marka waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahamteen. Please like and subscribe channelka hala dhaafin. Waan rajeynayaa inaan isla socdaan insha Allah. Shukran.